السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا يوتيوب وين السلامة كسور دوادا Somali Online IT maanta waxaan idiin hayaa application aad iyo aad u muhiim ah kaasoo kaa caawinaya inaad mobilkii kugu jira Kingroot asigoonan dhib kuu geysan inaad iska bedeshid oo aad u bedelatid Super Sue waa sida Kingrootka ah waa aad buu muhiim u yahay asigana in mobilada lagu soo shubto Kingrootka uu ka yara fiican yahay xoogaa Kingrootka inta badan dhibaato keena laakiin kan wax saas ah dhiba ma keeno marka Super Sue Pro aa ku qoraysaa application asiga la mid ah inta kuma jira hadii si kasta looga raadiyo marka midkaana soo qabsanaynaa ka bacdi open baan leeyahay install wuxuu ku siinayaa laba application asiga laba u sii kala baxaya installing daqiiqado badan buu qaadanayaa xoogaa waxaa laga yaabaa mobile qaarkood inuu wax yar qaato laakiin xoogaa in muddo buu qaadanayaa waa sugaynaa wakaa open baan leeyahay marka wuxuu ku soo saarayaa digniintaas taasoo ah this premium tool will be used preparing to convert Kingroot baa waxaa lagu bedelayaa Super Sue okay dheh ka bacdi press big blue midaan calaamadan buluugta ah waa saa u riixaysaa hal mar bas marka Kingrootka kugu jira versionkiisa buu ku sheegayaa iyo inuu mobilka ku jiro inta calaamada hoose iyadana u jeedaa ilaa intaas uu buuxinayaa daqiiqado aan sugaynaa oo isku soo laabanaa markuu dhameeyo already hadda wuu dhameeyay filayaa hal mar kale tuuraya waxa waa iska waiting daqiiqado in la sugo u baahan asxaabay waa kaas markuu dhameeyay haddana digniinta kale uu soo saaro oo ah application-kan laba stage buu marayaa stage-ka hore waxa waa inuu Kingroot ka saaro haddana ka bacdi will be prepare and restart the app okay baad leedahay haddana sidii markii hore sameysay calaamadan weyn oo buluugta ah haddana dhag siinaysaa step-ka koowaad oo taas ah asigaasi toos ah noo geenaya granted oo ka hatta halkaas aad tig saaraysaa grants baa leedahay in labadan la isku kala bedelo hasbi markaas u dhameysid aad ka soo baxdid waa kana Super Sue new user saas u wareeganaya 100 saas dhag continue continue si noo marka caaliga ah marka installing buu ku sameynayaa abaad buusan u wareegsanaya if you see this message for then 5 minutes please reboot in ka badan 5 minutes hadii sugaysid reboot u dir telefoonka demi oo daar okay baan leeyahay asxaabe waxaan filayaa inaad si wanaagsan ila socotaan oo ii fahanteen inta meel aan soo maray step-yada aan soo maray inaan laba stage soo marnay marka in Kingrootka aan install ku sameynay haddana Super Sue aan soo dejisanay marka installation success buu leeyahay okay marka reboot ba telefoonka u direynaa reboot marka u dirna ka bacdi Super Sue sidoo noqdo waa arkaynaa adiguna waxaad yeelaysaa xaaladii step-yada aan soo maray saas u mar si aad Super Sue ku heshid markaad mobilkaaga demisid oo daartid ka bacdi saan kale kugu soo shidno waxaad soo furaysaa Super Sue marka inta wuxuu ku soo saarayaa inta application oo guaranteed ka qaadatay inta application macnaha ka qaadatay fasax inay lagu isticmaalo Mobilezone ba hadda koow ka ah midkaan waa midka hadda isticmaalayna markuu ugu horeyso uu ku leeyahay marka halkan waxaad aragtaa in safety cidla ay tahay tan la'aanteedina aysan shaqeynayn marka midda kore access-ka waxa ku qabanaysaa aad taabanaysaa grants midaan kale iyada global-ka enable wad ka dhigaysaa safe baa leedahay marka iyadana Mobilezone ta imaano wax walba si aad granted ama waqti aad u siisid tanna kadalika asna enable safe application walbo asna oo ku soo dega sidaas sameynaysaa marka mid kale aan kugu daray waxay tahay app-kan asiga waxa laga helaa Google Chrome waa laga helaa Play Store waa laga helaa taada kalena waxa laga helaa AC Market kana aad u fiican oo inta badan aanu applicationada aan kala soo degaa wax walba aan u baahanahay waa wixii xitaa lacag ah intaan ka helaa marka asxaabta horena cashir baan ugu sameynay application kan
AC market kan hala soo dego kana muhiim ah xitaa wax walba oo ku jira King Root hadda Play Store ku qorto kama helaysid hadda Super Suuq ku qorto kama helaysid laakiin inta waa ka helaysaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. asxaabta nagu cusub iyadana waxaan ka codsanaynaa inay subscribe saaraan si ay ula socdaan casharada dambe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.